faa'iidooyinka cajiibka ee caafimaad ee laga helo funnel seedka haddii aad u isticmaasho sidaan kuu sharxi doono insha allahu. Insha allah waxaan kula wadaagi doonaa 8 faa'iido oo cajiib ah oo laga helo mirahan, qaabka loo diyaariyo kahor isticmaalka, farqiga u dhexeeyo noocan miraha ee hortiina ka muuqda iyo kaniiniga yacni laga sameeyo funnel seedkan iyo budadan sida arkaysaan midka ugu fiican waa sharxi doonaa insha allahu. Sidoo kale waxaan sharxi doonaa faa'iidooyinka ay kala kulmaan dadka qaba xanuunka gaaska haddii ay u isticmaalaan sidaan sharxi doono insha allahu. Dadka loo ogolay inay isticmaalaan, kuwa aan loo ogolayn isticmaalka mirahan, isbedelada qofku isku arki karo isticmaalka waqti kooban kadib iyo qaabka loo diyaariyo, xaddiga ama inta yacni ugu fiican ee qofka ka isticmaali karo maalintii si yacni faa'iido dhammaystiran oo u helo. Oo mararka qaar waxaa dhacda qofka in xaddigii ama heerkii ama inta loogu talagalay in ka yar inuu isticmaalo. Marka waa sharxi doonaa insha allah intaa u baahan tahay yacni maalintii inaad isticmaasho. Ka faa'iidaysi wacan, la wadaag asxaabtaada si kuula faa'iidaystaan. Magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq. Soo dhawaada mar kale. Ka hor intaan u guda galin qaabka yacni ugu fiican ee loo diyaariyo ama loo isticmaalo iyo xilliga la isticmaalo, aan u guda galna marka hore faa'iidooyinka laga helo funnel seedka. Kow, sida hortiina ka arkaysaan wuxuu caawiyaa ama sare u qaadaa shaqada dheefshiidka oo waxay caawiyaan soo deynta dheecaanada yacni qaabilsan burburinta cuntada. Taas marka qofku waxay u keenaysaa in dibiryo iyo wax lamid ah uusan dareemin, dheefshiidkana si fiican u shaqeeyo oo qofka calool fadhi iyo wax lamid ah oo isku arkin ama yacni cuntadii caloosha gaartay si fiican u burburin iyo wax lamid ah. Marka wuxuu ka qayb qaataa ama caawiyaa in shaqada dheefshiidka ay si habsami leh u dhacdo. Marka si guud dheefshiidka sidaas ayuu muhiim ugu yahay. Sidoo kale qofka haddii yacni gaas iyo wax lamid ah oo qaba qaabka u isticmaala waa sharxi doonaa sida hortii waa ka arkaysaan. Ayadana yacni aad ayay muhiim ugu tahay oo dheefshiidka yacni ayay saxaysaa oo qofka gaaska qabo dheefshiidkiisa haddii yacni oo saxmo sida hortiina waa ka arkaysaan yacni waxaa dhacaya in yacni dibriyadii waxay ka yaraato, xanuunka caloosha oo ka dareemaya wax lamid ah ka yaraato, dheefshiidkan oo si fiican u socdo calooshii wax lamid ah yacni si fiican ay u socoto. Dadka inta badan funnel seedka isticmaalo aad ayay u garanayaan yacni dadka gaaska qaba nafis fara badan ayayna ku dareemaan markay isticmaalaan kadib. Marka waa qodobka koowaad, dheefshiidka sidaas ayuu muhiim ugu yahay hadday noqon lahayd calool fadhiga, hadday noqon lahayd dibriyada iyo xanuunka caloosha ka dareemaysa iyo gaaska iyo wax lamid ah. Sidaas ayuu muhiim ugu yahay funnel seedka. Faa'iidada labaad sida hortiina ka arkaysaan wuxuu muhiim u yahay caafimaadka indhaha oo fitamiin A ayaa aad ugu badan. Fitamiin A-gana saa ognahay wuxuu si gaara muhiim ugu yahay caafimaadka indhaheena. Qodobka saddexaad wuxuu sifeeyaa dhiigga yacni oo qashinka iyo wax lamid ah ama wasakhda ka sifeeyaa sida hortiina ka arkaysaan. Ama si guud yacni jirka ayuu qashin saar yacni ku sameeyaa sababo la xiriira maadooyinka hortiina ku qoran oo ku jira ayaa keenayo sida hortiina waa ka arkaysaan in yacni dhiiggii la sifeeyo ama si guud jirkii wasakhda laga sifeeyo. Faa'iidada afaraad wuxuu muhiim u yahay yacni maqaarkeena oo maadooyin ku jira funnel seedka waxay ilaaliyaan ama jirkeena ay ka ilaaliyaan ama maqaarkeena ay ka ilaaliyaan dhaawaca kaasoo ugu imaanayo free radicals wax loo yaqaano. Marka si guud caafimaadka yacni maqaarkeena sare ayuu u qaadaa funnel seedka oo aad u muhiim ugu yahay. Faa'iidada shanaad wuxuu muhiim u yahay hooyada yacni nuujinaysa ilmaha oo sida hortiina ka arkaysaan wuxuu sare u qaadaa soo saarka caanaha yacni ayuu sare u qaadaa oo maadooyin ku jira ayaa jira oo caawinayo soo saarka yacni caanaha taasoo muhiim u ah yacni hooyada iyo cunuga labadaba sida hortiina waa ka arkaysaan. Qodobka lixaad qofka hadduu dhiig kar iyo wax lamid ah qaba maadooyin ku jira funnel seedka aad ayay muhiim ugu yihiin oo isticmaali karaa cadaadiska dhiigga hoos u dhac ayaa ku imaanayo. Qofka haddii uu ka cabanayo bad breath ama halitosis wax loo yaqaan ama af ur iyo wax lamid ah oo neefta yacni afkaada ay soo uraysa wax lamid ah aad ayay muhiim ugu tahay qofka inuu isticmaalo. Qaabka uu isticmaala iyo xaddiga uu ka isticmaala qayb dambe ayaa ku sharxi doonaa insha allahu. Qodobka sideedaad wuxuu muhiim u yahay qofka haddii uu rabo inuu miisaan iska rido maadaama sida caadiga funnel seedka qofka markuu cabo inta badan yacni baahi fara badan iyo wax lamid ah aysan qabanaynin. Taas waxay keenaysaa miisaankiisa yacni inuu hoos u dhaco maadaama cunto fara badan uusan cunin. Qof funnel seedka markuu cabo badanaa saa ogtihiin yacni baahida faraha badan la way ka yaraataa. Marka baahi fara badan qofka hadduu dareemo cunto fara badan u baahanayo, cunto fara badan hadduu u baahnayn jirka si tartiib ayuu isku dhimayaa. Miisaan kale yacni qofka jirkiisa ma koraayo
inkastoo yani funnel seed keligiis yani uusan waxba u tarayn qofka oo yani miisaanka ridayn hadduusan jimicsi sameyn ama cuntooyinka qaar waqti qaldan oo cunin sida habeenkii ama wax dufin faraha badan leh oo cunin, yani way adagta inuu miisaan ka dhaca, balse qeyb ayuu ka qaataa. marka sideedaas faa'iido ayaa laga helaa, iyo faa'iidooyin kaloo fara badan ayaa jiro, balse sideedan ayaa ugu muhiimsan faa'iidooyinka laga helo funnel seedka. marka sidee loo isticmaalaa? sida hordhaci baan kusoo sheegnay, asigoo kaniini ayaa jiro, asigoo budo oo kale ayaa jira saa arkaysaan, asoo miraha ayaa jiro. marka miraha ayaan xooga saaraynaa maadaama ayaga ugu muhiimsan yihiin. oo sida arkaysaan hadda dhowr qaab ayaa jirta loo isticmaalo, qofki inuu biyo la dhigo habeenkii, qofki inuu shaah iyo wax lamid uu ku darsado, labadaas ayaa, ama biyo iyo kulul iyo wax lamid uu ku darsado. marka aan ku horumarno biyaha habeenkii la dhigo, sida hortiin aad ka arkaysaan hal qaado oo qaadada intaan la eg arkaysaan table spoonka loo yaqaano, oo macni mirahan ayuu qofka soo qaadanaa sida hortiin aad ka arkaysaan. waxaa ku daraysaa marka hal koob ama 2 koob oo biyo ah ayaa ku daraysaa, habeenkii ayaa meel la dhigaysaa, subaxii aroortii ayaa cabaysaa. marka ma shiidaysid, biyo kulul kuma daraysid, kaliya biyo caadi ah oo 1 koob ama 2 koob ayaa halkan qaado ku daraysaa, meel ayaa la dhigaysaa. subaxii yani ayaga ayaa isku dhalaalaya, subax ayaa cabaysaa, waxaana cabaysaa sida hortiin aad ka arkaysaan calooshaada oo maran oo adoo waxba cunin micna asaa ku bilaabaysaa. marka waa muhiim saas inaad sameyso. marka 1 saac ama 2 saac inaad ku joogto ayaa wanaagsan, yani si shaqadiisa uu qabsado oo dheefshiidka uu saxo, inaa yani waqti siisa ayaa wanaagsan, oo waxa aadan ka daba cunin oo 1 saac iyo bar ama 1 saac ama 2 saac xiriir aad sugto haddii aad cunto cunayso. ama waxaad samayn kartaa subaxii markaa aroorta soo kacdo, mirihii ayaa soo qaadaysaa, 1 koob oo yani biyo ah oo aad karkarisay ayaa ku daraysaa oo ku dhex qasaysaa saa arkaysaan, kadib waa cabaysaa. sidaasna waa samayn kartaa, habeenkii waa cabi kartaa, laakiin subaxii calooshaada oo baahan ayaa fiican. dadka qaar xasaasiye ayay ku yihiin, waa ay ku xanuunsadaan. dadka qaar saa arkaysaan hortiina bug xanuun iyo wax lamid ayay dareemaan, oo caloosha ay xanuun ka dareemaan. dadka qaar matag iyo wax lamid ayay dareemaan. marka haddii aad ku xanuunsanaysid inaad iska dayso ayaa wanaagsan, balse haddii yani aadan wax xanuun ku dareemeynin oo yani mar walba aa cabtaba deganaan iyo caafimaad aad ku dareemeysidna, inaad isticmaasho ayaa wanaagsan mar walba. inaad fahanteen ayaa rajeynayaa funnel seedka waxa uu yahay, faa'iidooyinkiisa iyo qaabka loo isticmaalo. wixii su'aalaha qabtaan qaybta faallada ama comment inoogu reeba. asalaamu calaykum.